marka aniga ahaan iyo Puntland ahaan waxaan diyaar u nahay Soomaali samanta bixinteeda inaan qayb ka noqon waliba caasimadda inaan dad badan baan wallahi jecbanahay horta kuwa hadda madax sheegto sidaan arkay u galay inay reer xamar hayn bay sheegteen oo dadkii baabi'iyay kuwaas anaa uga jecla badnaan tala badan uma hayaan waxaan arkay wax lagu farxo maaha dadkii xamar iyo nolosheeda yaqaanay waxa maanta ka jira runtii waan dareemayaa inuu nin walba intuu quustay gurigiisa hoosta ka xirtay waa u garaabayaa runtii dad aan eedeynayo ma jirto maxaa yeelay markay dhib ku bato qofba qof buu tuhmaya dadkiina waa la iska wada horkeen marka waxaad moodaa qofba qof inuu sugayo intuu dhaqaaqayo laakiin waxaan aniga fariinteeda oran lahayd dalkan xogogaal baan ahay halis badan baa ii muuqata halis badan oo weliba dadka Soomaaliyeed dhexdeeda ahayn baa ii muuqata oo khatarteeda leh dayaca iyo kala daadsanaanta yaan laga faa'iideysan